عليكم daawadayaal meel walba joogtaan oo markale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waan waliba Bidar Caawiye fiidimo wanaagsan ayaan ku leeyahay waxaan rabaa barnaamijkan ku soo qaato mucjisadii qarniga inaan barnaamij ku soo qaato fiidnimadan mucjisadii qarniga walaal ka mid ah baarta gaashaaman oo la soo wadaagay guul qurux badan walaal ka mid ah daawadayaasha janaalka Bidar Caawiye TV ayaa wuxuu la soo wadaagay guul qurux badan walaalkan before saan ayuu ahaa talow maxaa isleedahay talow maxaa isleedahay haddaba ogsoonow waxa la isticmaalay waa hal xaba saliida new hair lotion iyo waxa uu sameeyay hal xaba saliida new hair lotion iyo waxa uu sameeyay adiga ayaa mid doona la soco barnaamijkoo dhammaystiran salaamu calaykum daawadayaal mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waa anigoo leeyahay Bidar Caawiye fiidimo wanaagsan ayaan ku leeyahay meel walba dunida ka joogto hadday tahay Amerika ugu horeysa soo boqoto janaalka Bidar Caawiye TV waxaa si xushmad laga codsanayaa subscribe-kiina subscribe adoo ka hadlin oo meel la fiirin dhag subscribe hadaa hore subscribe noo siisana waa ku maadsan tahay kun iyo kow jeer leegi maxaa noogu diiday leega noo saar leega suuqa kore dhag iska sii lacag kaama joogo free ayuu ku yahay insha Allah billahi kariim inta kaftan ayay iga tahay inta barnaamijka guud galin mar walba waxaan ku dhahaa barbaarta gaashaaman daadooda ay u dhaxayso 16 ilaa 26 fadlan ka digtoono waxyaalaha madaxaaga dib ku geysanayo fadlan ka digtoono waxyaalaha madaxa dib ku geysanayo sida madoobeysada jilcisada kalarka hair foodka iyo jeelka rag badan waxaa jiro rasta ah 12 jir jeelal isku dhaw qaatimi rasto kala arag jilcisa la marsana markii 20 inta la gaarin bidaarti waa tan intaas ay tagaysaa salaxay iyo dheeraanaya abti ka digtoono waxaas hore uga soo daalna waxa hadda ku sheegayo oo waxa hore u soo aragna waa anaga waxa ka shakeeynay waa maqalay baahan mar walba waxaa ku leeyahay ka digtoono waxyaalaha madaxaaga dib u geysanayo raadso waxyaalaha harbalka saliidaha dabiiciga fadlan raadso shaambooyinka dabiiciga raadso hal saliid isticmaal hal shaambo isticmaal 100 saliid oo kala nooc isticmaal hadba tii raqiis ha qaadan qiimaha joogto saliidda halka xaba isticmaalayso madaxa u isticmaalayso taa isticmaal fiina abadan shaambada madaxa ku noqonaysa ayada taa kadalik qofka shaambada uu madaxa ku noqonayo hadday baby shaamba ad fiirada bidaar laynata ama badsalxaya online ama timaha ay ku daataan isticmaal shaambada babyga mar walba baby shaambiga way ka quality fiican tahay shaambooyinka kale waayo wax kiimika ma la baby shaambada hadaa tan helaysid tan isticmaali kartaa hadaa tan aad helaysid baby shaambada oo aad tan helaysid hair volume ka shaambada wiil ahow gabar ahow everything waa isticmaali kartaa shaambadan waa shaambo leh wax walba oo fitamiina shaambo wadato wax walba oo fitamiina shaambo wadato madaxa loogu talagalay dabcan walaal ayaa wuxuu soo weydiiyay su'aalaha WhatsApp-ka wuxuu soo weydiiyay maalin walba ku qubaysanaysaa may tiba badan ma leeyahay way jeedaa sideedaba madaxa qofka dadka qaarkood waxa u malaysaa inay wax fahmin wali madaxa qofka bini'aadamka goormuu dhaqaa qofka goormuu timaha dhaqaa ilaa madaxa la dhaqay lagu sheegayo waa timaha qofka hadduu tima lahayn muxuu dhaqaa horta hadduu meesha tima lahayn meel qallo tahay muxuu dhaqaa waxa waa laakiin sideedaba shaambooyinka qofka wuxuu isticmaalaa ama shaambada lagu qubaystaa qofka markuu madaxiisa wasakh dareemo shaambooyinka iyo wax walba qofka wuxuu isticmaali karaa markuu madaxiisa wasakh dareemo laakiin hadduu madaxaaga wasakh lahayn biyo cad aad ku qubaysan kartaa hadduu madaxaaga wasakh lahayn biyo cad ayaa ku qubaysan kartaa anaa kuu sheegayo hataa caafimaadka ku jiro inuu qofka biyo caadi ku qubaysto maalin walba hadduu helayo biyo cad ka caafimaad badan waxyaalaha kaloo la isticmaalayo biyo cad ku dadaal waxaan rabaa inaan WhatsApp-ka hal iyo laba ka dhaw walaalaha qaarkood walaal ayaa wuxuu soo weydiiyay darmaroolka noocee ayaan isticmaalaa darmaroolka boqol barnaamij taa waa ku aragteen darmaroolka waxaa isticmaali kartaa 0.5 waa kan ugu fiican qofka markuu hoos kasoo bilaabayo 0.5 isticmaal 0.5 walaalkala wuxuu soo weydiiyay sidee u isticmaalaa new hair lotion sida ugu fiican oo new hair lotion oo isticmaalaysa boqol marna waa ku sheegay hadda dhageyso marka hore baby shampoo kusoo qubayso waa marka qofka ugu horeyso waayo baby shampoo kusoo qubayso marka baby shampoo kusoo qubaysato madaxa qallaji madaxa marka qallajisada haysta garfeed ama darbaroolka haysta yaqaano madaxa masaajay 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo masaajay kadib madaxa shalayso madaxa marka qofka uu shalaysto kale uu caadi u shalay madaxa uu shalayo 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo madaxa uu shalayo ama uu darbaroolka ku xoqo marka mar walba loo kusoo shalada way u dambeeyay garfeedna way u dambeeyay doontaa ama shalada way u dambeeyay doontaa marka madaxa masaajaysa kadib
darbaroolka isticmaalka darbaroolka isticmaashid haddaa rabtid shallada waa ku xiji kartaa markaa shallada ku xijiso saliidaa soo qaadanaysaa markaa shallada ku xijiso saliidaa soo qaadanaysaa new hair lotionkaa soo qaadanaysaa adaa yaqaan madaxaaga intuu leegahay adaa yaqaano 4 mar ilaa 5 mar waa ku buufinaysaa marka madax oo dhan hal meel kuma buufinaysa madax oo dhan waa ku buufinaysaa kadib ayaa ku masaajeynaysaa madaxa markaa ku buufiso waa ku masaajeynaysaa walaal ayaa soo weydiiyey mar walbo hataa kilibyaa u dira walaalkaas maaqa wax ka qaldan kilibyaa u dira walaalkaas oo ay ka daawo kilibadaas ka daawo wax walbo iyo saa sameynayso dhan kilibkaa ku arki doontaa walaalkaas ay noo maaqaan intaa markaa samayso aad dhamayso waa shalaynaysaa marka darbaroolka u fiirso mar walba darbaroolka u horeeya dadka qaarkood waxaa moodaa darbaroolka inay ku dhahayaan darbaroolka niyahow waa u dambaysiin dadaa wax ku leeyihin saliid markaa marna kabacdi aad darbaroolka isticmaalayna darbarool ma isticmaalaysid darbaroolka kow markaa soo qubaysto madaxa aa qalajiso 5 daqiiqo oo madaxa aa fadhido 10 daqiiqo camal aa fadhido madaxa uu iskiis u qalalo darbarool ku bilow darbarool qofka hadduu haysanina garfeedha u isticmaali karaa garfeedha ayuu madaxa dhan ku shalaynaya siday darfayaasha u kacaan garfeedha ku shalay madaxa see neerfayaasha iyo dareenka madaxa uu kaco aan kula wadaago walaal ka mid ah waa mucjisadii new hair lotion intuu isticmaalayay walaalkan before saan ayuu ahaa waxaan isticmaaluu yiri hal xabo saliidda new hair lotion ayaa isticmaaluu yiri waxaa kaloo isticmaaluu yiri oo aad aan u isticmaalay geedka la yidhahda sanjabiisha cagaaran sanjabiisha waa taqaaniin geedka sanjabiisha la dhaho ama shaah ku darso ama ayadoo kale biyo ku darso walaalkaa wuxuu yiri sanjabiisha ayaa aad u isticmaalay gaarsii walaalaha barbaarta gaashaamana sanjabiisha inay qayb weyn ka qaadatay hal xaban iyo hair lotion ayaa isticmaalay sanjabiisha subaxii iyo habeen markaan seexanayo aan biyo intaan ku karkariyo sanjabiisha dabka aan saaro biyo caadi ku daro ku karkariyo aan cabayuu yiri waa sanjabiisha geedka loo geedkaas ogsoonow sanjabiisha iyo waxaan isku dira ayuu yiri toon sanjabiil iyo toon ayaa isku dira ayuu yiri cajiib qof walbo anaga keliidii waa rafanay keliidiyaa cunay kanaa cunay ninkaanna waxaa waaye ilaaha u gargaara sanjabiisha iyo toonta wuxuu yiri ogaada gaarsiiya barbaarta gaashaamana sanjabiisha iyo toonta haboogaan mar walbana waxaa waaye karkari ayagoo shahaan waa cabi kartaa ayagoo biyo caada walaalkaan wuxuu ila wadaagay biyo caada ku karin jiray yiri biyo caada ku cabi jiray walaalkaan before waa soo aragtay after oo hadda la joogo walaalkaan saan ayuu yahay waxaa wadaayuu yiri hal bil hal caag ayaa iga dhamaaduu yiri hal caag ayaan isticmaalay hair lotion bil ayaan wadaa waa aragtay before afterna waa aragtay waa sheeko kaloo ani igu cusub waaye sanjabiil iyo toon aan dabka saaraya aan cabaya kiriidiyaashii wixii ka tagnaa marka waa wareerna wallah intaa kaftan ayay iga tahay walaalka aan leenahay guuru aan ayaan leenahay dadaalaa wuu gaaraa wax walbana dadaal ayay rabaan wax walbo oo loo dadaalin ama dhibkooda la helin lama gaaro waxaan ku leeyahay fiidimada kuwa canaanto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu